السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله قيمة قياه بدن سود هذا مركلة إيو حلقة كلا إيو دروستين بش رمضان بش بركة سناد. إلهي سبحانه وتعالى هنو بركيو، إلهي نبضها هنو قدميو، إلهي دمداف إيو حرين هنقصيو. حلقة دينا ما أنت إن شاء الله تعالى waxay ku saabsanaan doontaa dhaqamada aan fiicneen inaan iska ilaalino bisha Ramadaan ama aan baabi'ino bisha Ramadaan kadibna aan go'aan ka gaarno. Bishaani Ramadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku soo koobay waqti oo xadidan bilow ila dhamaad leh. Waqtigana waa ogtihiin qiimihiisa Ilaahay agtiisa uu ka leeyahay. waqtigaasi daqiiqadaha ah ee saacadaha isu bedelaya ee kadibna maalin isu bedelaya ee bil kadib soo gabagaboobay doono waxa weeyaan ka faa'iideysi buu u baahan yahay. Si aan waqtigan ugu faa'iideysano waxaan u baahanahay qorshihii aan dejisanay ee hore u soo sheegnay inaan waqtigeena dhan ku soo koobno. dhaqamada xunxun ee bisha Ramadaan aadka u badan waxa kamid ah nasiib daro in oo qofkii uu isku dayo inuu waqtigiisi ku baabi'iyo waxyaabo oo maala yacni ah social media inuu waqtigan ku qaato baraha bulshada in qoraxda intay ka dhacayso maanta oo dhan kan ka bax kan gal ka bax kan fiirso kan dami qofkii saacada fara badan oo bisha Ramadaan oo qiimaha badneed ah uu ka faa'iideysan karay ayuu baraha bulshada ku baabi'inaya. caadadaasi Ramadaan ka hor waa jirtay laakiin waxa la rabaa Ramadaan gudaheeda inay caadadaasi baabacdo. ahdaaftan idin sheegayo ilaa 40 hadaf gaarayay dadkii dajistay mid kamid ah qaarkood wuxuu yiri ahdaafteedu waxa kamid ah bisha Ramadaan inta soo saacdood oo kamid ah inaan telefoonka iska damiyo. yani wuxuu rabaa telefoonka dhan inuu la dagaalamo meel iska dhigo, wuxuu rabaa inuu ku mashquulo cibaado iyo wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanay. telefoonka mararka qaarkood asii laftiisa lagu cibaadeysan karaa, quraanka ay kugu jiri karo, waa ka akhrisan kartaa, laakiin warbaahintan iyo social media oo baraha bulshada ah inaad iska ilaalisid waqtiga badan ay ka qaadan doonaan. waxyaabo muhiimka mararka qaarkood inaad ka fiirfiiriso waa muhiim, laakiin Ramadaan ha kaaga duunaada barihi hore. dadka qaarkood barihi hore ba mashquulsanaayeen waxyaabo kale ay haayeen. bisha Ramadaan oo dhan ba waxay ka dhigayaan social media musalsal iyo wax maala yacni oo kale, meel ciyaar daawasho la dhuula dheelaya iyo wax la mid ah. waqtigaas aduu ka go'an yahay, xisaabtaadu ka jaran yahay, maalin dambana kuma soo mari doono. sida dadad bisha Ramadaan waxyaabahaas oo dhan iska liis garay. caadooyinka xunxun ee aad caadaysatay Ramadaanka ka hor ee aad joojin doonto ku dar oo iska soo gabagabay listiga adiga aad baabi'in doonto ku dar oo bisha Ramadaan aan marna ku soo gali doonin. waqtiga uu qiimaha badnaayo salaada casrka kadib ah ba inta dhalinyaro Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankii baray. ummado badan baan quraanka aqoonin oo maalin iyo habeen u ooynay haddaan carabkayga mar quraanka uu baran lahaa oo aan akhrin lahaa ku ooynay. anagana intaan wiilasheena quraankii baranay oo qof ugu yar uu 3 juz 4 juz yaqaano ayaan hadana galbihi goortan quraanka akhrin lahayn meelaha intaan fariisano laaduu ku dheelna ama ciyaaran ku daawna ama aan ku doodna. bisha Ramadaan waxaas uma qalmaan, munaasibna uma aha. waqtigaasna aduu ka lumaya, birina ka shilayn doono markaad aakhir miisaankaada ka aragto. marka caadooyinkaasi fadlan aan iska ilaalino. caadooyinka Ramadaanka dadka qaarkood ay caadaysteen waxa kamid ah qofka inuu si waali ah wax u cuno. bisha Ramadaan bishii wax cunowga inay noqoto. bisha waxa loogu talagalay qofkan in uu awood cibaadada ugu awood u kaashanayo inuu cunaa laga rabaa, laakiin inaad tiraahdid watazawadu zaad qaata si fiican caloosha u buuxsada kadibna caloosha markaad buuxiso
ilaahu cishaaba haddaan tugto aad tirahdid ka waran taraawiix warkeeda iskaba dhaaf maba tukan kara maba kici karaba waad meelaha ku rafatid xoogaa yar cun calooshaada baahida ka baabi cishaada tuko taraawiixdaada tuko markaas kadib adana xoogaa yar cun hadaad u baahatid kadibna taraawiix muxuu ahaay suxuurtaadi barakada qaado xoogaa ah yani isku dheelatir laakiin ramadaanka dadka ku cayilayo oo rabo inay ramadaanka noqdaan bishii cayilka waxaa la rabaa ramadaanka inay noqoto bil oo dadaal fara badan qofku ka baxay ay noqoto qofka markuu dadaal fara badan ka baxo waqti fara badan ka baxo micnaheedu waxay ka dhigan tahay qofkaasi waxbaa ka dhimaya mogi wax kuma ziyaadayaan ulama jeedin yani cunooyinka kala duwan ee nafaqada dadka ay cunayaan ay karsanayaan oo ka soo horjeeda maahan laakiin waxaan ka wadaa xad dhaafka illa wakulu washrabu wala tusrifu bu ilaahi subhanahu wa ta'ala cunu aba laakiin ha israafina ha xad gudbina waxaanad adiga ku xad gudbayso oo intaad haaf ka cuntid haafna ka tagtid kadibna daadinaysid dad ayaa la'san dad ayaa ka baahan waa nimco ilaahay uu ku siiyey oo aad ku kufrinaysid nimco ilaahay uu ku siiyey aad dayacaysid weeyaan marka ha dayacin nimcada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey ka faa'iidayso caadooyinka ay dadka caadaysteen bisha ramadaan oo runtii aanan fiicneen oo kambaniyana ay ka shaqeeyeen musalsaladaana ka mid ah musalsal baa ramadaanka ka hor 6 bilood la soo diyaarinaya bisha ramadaan baa la soo deynaya markaas wiilashii gabdhii musalsalkaas ba maanta oo dhan la dul fadhiya caawa dhan la dul fadhiya qofkaas lacag uu ka sameynaya lacag adigana asaad u shaqeynaysa maxaa kugu qasbay rabbigaada la shaqeyso ilaahay subxaanahu wa ta'ala bari astaghfirullah adoo dhahdaa ku dhaanto intaad qofkaasi aad macna ugu faa'iideyn lahayd waqtigaada caadooyinka dadka ay caadaysteen oo runtii aanan fiicnaan waxa kamid ah hadallada xunxun ee qofka afkiisa ka soo baxayso kaftanka oo dadka ay sameynayaan waxa la rabaa bish ramadaan afkaada inuu ku kontroolnaada la rabaa xadiidka rasuulku wuxuu ahaa man lam yadac qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba qofkii aanan ka tagaynin hadalka xun iyo ficilka xun aanan ka tagaynin ilaahay uu ma baahno inuu ka tago cunno iyo cabitaan soonka ha u fahmin in cunno iyo cabitaan laga tago hadalkaad inaad kontroosho waxaad ku hadlaysaa aad kontrooshid hadda afkaad u bartay xumaan bishaana la rabaa inaad isbedel ku samaysid oo habaysid jazakumullahu khayran xalaqada waqtigeeda laga dhamaaday insha Allah ta'ala xalaqada intaas aan ku soo gabagabeynina asxaabta la wadaaga intaan xalaqa kale ku kulmi doono billahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا